stability and security in the Middle East. We will work closely with our American allies to ensure that any new agreement with Iran will secure the vital... This is a part of the world where the United States has vital interests and some of our closest friends. maamuladii kala duwanaa ee Mareykanka ee isaga kala dambeeyay aqalka cad waxay intooda ugu badan dadaal wax ku ool ah ku bixinayeen xakamaynta dhaqdhaqaaqa hubka ee Tehran iyagoo aaminsan in Tehran ay dhaawici karto danaha Mareykanka ee dunida dacaladeeda muhiimaddu waxay ahayd bariga dhexe iyo qorshaha Tehran diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa wali aaminsan in heshiis nuclear ah oo lala gaaro Iran ay tahay danta ugu wanaagsan ee Washington. Xogayaha arrimaha dibadda waddanka Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay sharci-dejiyaasha tallaabada tan iyo qorshaha Washington. isagoo la hadlaya guddiga sanadka ee xiriirka dibadda xogayaha waxaa lagu cadaadiyay ku adkaysiga maamulka Biden ee ku aadan dib u soo noolaynta heshiiskii nuclear-ka ee 2015 waxaan sii wadaynaa inaan aaminsanahay in dib ugu soo noqoshada u hoggaansanaanta heshiiska ay noqon doonto habka ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo caqabadaha nuclear-ka ee Iran ayuu hadalkiisa sii raaciyay xogayaha waxa uu wacd ku maray in uu qaban doono dhageysi furan Iran ka hor maalinta xuska oo ku beegan dhamaadka May hubin doona inaan taas sameeyno ayuu hadalkiisa ku daray xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Master Antony Blinken wuxuu ku celiyay faalooyin hore oo ah in maamulka Biden uu taxlay xaalad aad u adag isagoo raaciyay inay jiraan kor u kac xiisadaha Iran xogayaha ayaa sidoo kale ku andacooday in waqtiga jebinta nuclear-ka Iran uu ka dhacay 1 sano ilaa 7 baadyo sababtoo ah ka bixitaanka Mareykanka ee heshiiska Iran sida muuqata waxa ay ku dhaqmaysaa saameyn xooggan oo xasilooni darro ah taasi oo la xiriirta gobolka oo dhan si kastaba ha ahaatee xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa qirtay in heshiisku waxba kama qaban doono si wax looga qabto barnaamijka gantaalaha balastiga ee Iran ama taageeradeeda xasiloonida dalka gobolka diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa sidoo kale qirtay inay jirto qatar Iran oo socota oo ka dhan ah nolosha saraakiisha Mareykanka mid hadda ah iyo mid horeba xogayaha ayaa sidoo kale dib u weeraray dhaleecaynta heshiiska isagoo sheegay in haddii heshiis la gaaro aysan ka saari doonin awoodda Washington si ay u raacdo Iran iyadoo adeegsanaysa cunaqabatayn faragelin iyo joojinta socodka lacagta Tehran ee ay ku isticmaali karto hubka marka ay timaado hawlahan way ka sii dari lahayd haddii ay haystaan hubka nuclear-ka ayuu hadalkiisa ku sii daray gudoomiyaha guddiga sanadka ee Mareykanka ayaa sheegay in heshiiska uusan noqon doonin mid dani ugu jirto Mareykanka 2022 ma aha 2014 ma aha xitaa 2015 ma aha ayuu gudoomiyaha guddiga sanadka Mareykanka u sheegay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka isaga oo sanadihii laga xaajooday heshiiska oo ah barigii uu joogay maamulka madaxweyne Obama